الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maalin kasta oo axad ah waxaan global box aan idinkaga soo tabin doonaa kitaabka addaa'u waddawaa uu qoray al-imaam ibn al-qayyim al-jawziya marka kitaabkan dad fara badan oo mujtamaceena ka tirsan wuxuu ka saacidi doonaa waxyaabo badan ay u baahan yihiin maxaa yeelay dad fara badan oo anaga naga mid ah yacni way bukaan way jiran yihiin dadka qaarkood akhlaaqiyan ay u jiran yihiin oo mataqaana waxyaabo qaarkood ay dhagta ay ku noqdeen ay ku dhagan yihiin sida sigaarkii oo kale qamrigii oo kale daragaskii oo kale marka waxay rabaan inay ka daaboobaan dadka qaarkood waa dad xanuunsan waxay rabaan mataqaanaa maalin kasta dhakhtarkii aaditaankiisa dhib ayay ku noqotay marka waxay doonayaan min allahi inay ka helaan shifaa oo sariic oo degdeg ah marka dadkaasoo idil kitaabkan wuxuu u yahay mid kheyrkooda uu ku jiro marka biidn illaahi alkariim maalin kasta oo axad ah ayaan kasoo tabin doonaa mataqaanaa tv-ga hadda waxaan bilaabaynaa kitaabkii oo ibn al-qayyim al-jawziya iska leh magaciisna waxaa la yidhaahdaa addaa'u waddawaa addaa'u waddawaa ayaa la yidhaahdaa wuxuu kaloo leeyahay kitaabkan magac labaad magaciisa labaad waxaa waaye aljawaabu alkaafi liman sa'ala can addawaa ashaafi yacni waxa waaye jawaabtii ku filnayd ninkii weydiiyey mataqaanaa ninkii weydiiyey dawada oo mataqaanaa wax caafinaysay ninkii soo weydiiyey jawaabtii ku filnayd oo kaafinaysay jawaabtan hadduu helo su-aal kale ma qabaayo jawaabtana ku filan marka labadan magac kitaabkan suuqyada wuu ku yaalaa qaarkood waxaa ku qoran addaa'u waddawaa qaarkoodna waxaa ku qoran mataqaanaa aljawaabu alkaafi liman sa'ala can addawaa'i ashaafi marka labadan magacbo waa halkii kitaab hal sheekh ayaa iska leh laakiin magaciyaa kala duwan بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي اسمك جيسا أنا وكال ميسانينو أيام بلا بينا شيخ سيداس أيويري عليه الرحمن نحريست قد أحانيت متى خلائق ديسو وقلنا حريسنا يأدونك الحديثة الرحيم عليه نحريست قار أحانيت مسلمين تا يوم القيامة وقلنا حريسنا وبه نستعين إمامك بحويري علىها أيام ككالمة البيناه oo mataqaanaa alahaasi qeyrkiisa waxba ma warsan mayno alahaasi kaalmo dalabkeena waxaan ku gaar yeelaynaa alahaasi oo kaliya marka sida oo aan sheegnay cinwaankii kitaabka sida laga fahmi karay ilaan laba magac uu lahaa addaa'u waddawaa iyo aljawaabu alkaafi liman sa'ala can aldawaa'i ashaafi marka cinwaanka labaad waxaa laga fahmayaa shiiqa kitaabkan markuu qoraayo uu alifaayay isagoo intuu meel fariistay dadka muslimiinta kitaab anfacaya qor sidaasoo kale kuma aysan soo dhicin oo sidaa kuma imaan kitaabka wuxuu ahaa su-aal ayaa la soo weydiiyey su-aashii la weydiiyey ayuu ka jawaabayay sheekha marka sheekha su-aasha qaabka loo soo weydiiyey waxay ahayd sida tan hadda kitaabkan bilaabaynaa su-aashii ayuu ku bilaabay maa taquulu ninkii soo qoray warqadda wuxuu yidhi maa taquulu assaadatu alculamaa culammadii sharafta lahayd maxay tiri a'immatu ddiini diinka imaamyadiisa maxay ka yidhaahdeen radia allaahu canhum ajmaciina في رجل نين محكي يرهدين نين كاسو ابتلي ببلية لباتو لو ابتلي يعني بلايا محاواية مصيبة يعني ما يوصل شيء مصيبة دان معرب نبي مصيبة داسي وحين نقول كرتا مصيبة بدنية وحين نقول كرتا مصيبة أخلاقية مركا وحالة يابا شيق إنه يقاني شيق نين كان لباتو دا هيستن ووغا كدب شيء نينكي سؤال الشيق إنه ويديه وحالك اسمه كورقبي ساسا لغا يابا إنه سمو الشيقين waxaa kaloo laga yaabaa inuusanba sheegin oo mataqaanaa uu ku gaabsaday kaliya nin dhibaataysanaan ahay oo mataqaanaa dhibaatadan oo ilaahay xaggiisii laga mataqaanaa musaa'ib lagu riday marka waxaan doonayaa ninkaasi inaad u jawaabtaan fii rajulin maxay ka dhahayaan culammada ubtuliya bibaliyatin mataqaanaa musiibo lagu ibtileeyay wa calimana ogaaday annahaa in istamarat bihi hadday musiibadaasi daa'imto afsadat calayhi inay ka fasahaadinayso dunyaahu wa aakhirata adduunyadiisa iyo aakhiradiisa ayay ka fasahaadinayso saasna wuu ogaaday muxuu soo ninkaas maxaa ka dhehaysaa waqad ijtahada ninkaas haddana markii musiibada ay ku dhacday meel iskama fariisan muxuu suubiyey waqad ijtahada wuxuu ku dadaalay fii dafcihaa
can nafsihi musiibadaasi inuu naftiisa uu ka difaaco bikulli ariiqin ariiq la arko yacni meel ma fariisan wuxuu raadinayaa mar kastaba dawa ayuu raadinaya hadda famaa yasdaadu mazyaasan raadinta waxa uu raadinaya mazyaasan kama ziyaasan ilaa tawaqudan wa shiddatan yacni mataqaanaa sii darnaasho wuu sii darnaaday markaasuu sii kacay oo markuu uu yidhaahdaba isdaweey waxa waaye naftiisa markaasay sii darnaataa hadda anaga tan waxaa noogu filan dadka oo waxyaabaha oo daragiska qaato kale markii la yidhaahdo isdaweey oo wixii uu ka istaago ma naftiisa markaasay sii darsataa maba ka faqi karo hadda ninka arrintaas camal ayuu tilmaamayaa laakiin anaga hataa ma dhahin mithaal ahaan keliyaan usoo qaatay famal xiilatu fii dafciha haddaba waxaas culumada idinkaa idin weydiinaya ninkan xiilada oo musiibadan iskaga difaaci kara maxay tahay aniga waan daalayuu leeyahay wama ariiqu ilaa kashfiha faydideeda oo musiibadan la iska feedo dariiqii loo qaadi lahaa muxuu yahay muxuu yidhi raxima allaahu allaha u kaalmeeyo man acaana mubtalan ninkii nin la dhibaateeyey oo masaa'ib lagu riday ninkii u kaalmeeyo isna allaha u kaalmeeyo wallaahu ilaahi fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisa u ahaaday maa kaana alcabdu addoonka intuu fii cawni akhiihi walaalkiisa intuu u kaalmaynayo marka waxaa waaye wuxuu xusuusinayaa sheekii ilaa ninka su-aasha soo weydiiyey inuusan waxaan dhayalsan uu rabaa sheekha uu yani arrinta way adag tahay serious waaye kaalmaan u baahanahay maanta haddaad ii kaalmaysa adina ilaaha kuu kaalmaynayo sheekhow haddaba aftuunaa haddaa culamo tihiin noo jawaaba raximakum allahu tacaala allaha idin naxariiste فأجاب الشيخ شيخي وو جوابي شيخي الإمام إمام كأها شيخي العالم عالم كأها شيخ الإسلام أها مفتي المسلمين مفتي قاضي أها شمس الدين وحواية شمس الدين مثلا نيستي سنة هاي أبو عبد الله نكون يدي سي هاي مجعي سنة وحالة به جري محمد ابن أبي بكر متقانا أيوب متقانا مجعي سدحان سدا صوها محمد ابن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية مدرسة دي يوم متقانا لوغو مقعدري الجوزية لوغو مقعدري متقانا إمام كيدناها مركا ابن القيم وحو عان كويهي ابن القيم وعان كويهي ابن القيم الجوزية أو عان كويهي وحوايا ابن القيم الجوزية مدرسة دان انتو isaga imaamka ka noqon waxaa imaamka ahaa aabihiis ayaa imaamka ahaa aabihiis markuu geeriyooday isagaa markaa mataqaanaa qabsaday oo meeshii maamulkeeda la wareegay duruus ka bixin jiray marka caan wuxuu ku noqday qayimna waxaa la yidhaahdaa ninka maamulaha ah oo madrasada maamulaayo marka ninkii madrasada maamulayay madrasadii magaceeda uu ahaa aljawziya ninkii maamulayay wiilkeedina ahaa raximahullahu tacaala allah u raxmada sheekhii wuu jawaabay muxuu yidhi waaka alxamdu lilah amaa bacd marka ilaaha mahad iskalou yidhi intaas dabadeed qofka muslimka waxaa laga doonayaa markii mataqaanaa wax uu bilaabayo markii wax uu sheegaayo sida hadda aan soo aragnay oo kale in mataqaanaa warqadiisa qoraalkeeda inuu ku bilaabo hadalkiisa inuu ku bilaawdo bismi illaahi raxmaani raxiim inuu ku bilaawdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sidaas ayaa sunnada ah kow arrintaasi maxay loo suubinaya laba arrin sababtooda loo suubiyaa mataqaanaa arrinta koowaad waxaa waaye dayasho ilaahay lagu dayanayo ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku bilawday bisimkii ilaahay uu ku bilawday kadib wuxuu ku xijiyey xamdigii uu ku xijiyey taa markaa dayashadaasi waa dayasho wanaagsan ilaaha lagu dayday kitaabkiisa lagu dayday tan labaad dayasho oo rasuulullaahi maxamed lagu dayanayo isna sidaas ayuu ahaa oo sidaas ayuu suubin jiray waxaa waaye mataqaanaa ilaahay bisimka ayuu ku bilaabi jiray xamdiga ilaahay ayuu waxaan kaloo jirto inuu soo arooray rasuulka ilaahay xadiis uu ku yidhi ninkii mataqaanaa amar kasta oo muhim ah oo bismillahi raxmaan raxiim aan lagu bilaabanin wuxuu noqonayaa mid faa'iida la-aan ah iyo amar kasta oo muhiim ah riwaayo kalena waxay tiri amar kasta oo muhiim ah aan lagu bilaabanin mataqaana alxamdu lilah wuxuu noqonayaa isne mataqaana mid oo daba jaran oo qiimo aanan lahayn marka ku camalfal axaadiistaas lagu camalfalaayo iyo dayasho ilaahay iyo rasuulkiisa lagu dayanaayo waxaa sunno ah in qofka hadalkiisa uu ku bilowdo sida sheekhu uu suubiyey bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin amaa bacdu wuxuu yidhi markaas kadib intaa dabadeed faqad habata waxaa sugnaaday jawaabtii ayuu bilaabay faqad habata waxaa sugnaaday fii saxiixi albukhaariyi saxiix albukhaari waxaa ku sugnaaday min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi maa anzala allahu daa'an ilaahi ma soo dejinin cudur ilaa anzala allahu lahu shifaan ilaahay haddii cudur uu soo dejiyey ilaahay wuxuu usoo dejiyey fiyoobi ama dawo ayuu usoo dejiyey وفي صحيح مسلم وحا كسقنا من حديث جابر بن عبد الله قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو يري لكل داء دواء
عذر كستبو وحو ليهي متقانا دواء أيو ليهي فإذا أصيب داء الداء عذر فإذا أصيب دواء الداء عذر كدوديس هدي لهله ولا أصيبه برأ روحي جرنا ورستا بإذن الله تعالى إلهي إذن كيسا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك وحال وريه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحك وريه قال إنه يري إن الله إلهي لم ينزل داء إلهي عذر مسود الجن إلا أنزل له شفاء حدو عذر أسود الجيين إلهي وحو أسود الجيي متقنا الدواء أي أسود الجيي علمه وحاقرنا يدواء ذاسي من علمه وجاهله وحجاهل كأه الدواء ذاسي من جاهله marka waxa waa cudur ma jir ilaahay uu soo dajiyay illa dawadiisna uu soo dajiyay marka waxa waaye hatta cudurku uu adag maanta adduunyada jiro oo AIDS-kii ah ilaahay wuxuu leeyahay dawa ayuu leeyahay marka dadka inay helaan dawadaasina waxa waa qadarkeeda ayay leedahay maalintii ilaahay uu qadaro ayay helayaan laakiin dawada way jirtaa wa fi lafzi kale waxa ku sugnaaday inna allaha ilaahi lam yada' da'an ilaahay cudur ma uusan soo dajin إلا وضع له شفاء إلهي هذا عذر وسود الجيي وحوسود الجيي دواديسنا وسود الجيي أو أما كلا وحود هاي شفاء أو أما كلا وحود هاي الدواء عذر إلهي مسود الجن إلا في يوديس وسود الجيي أما كلا دواديس وسود الجيي سيدا سؤال إلا داء واحدا هل عذر مو يعني مركا هل كاس عذر وامحي الصحابة رسولك إلهي ويدين وحيد هين قالوا يا رسول الله رسولك إله يوم ما هو عذر كاسم حواي ودواء أنا الله هين ما تقالوا وحوير الهرم دقني ما ديواي qofka insaanka ah waxa waa marka hore waa cunug yar kadib wuxuu noqonayaa mataqaana qof dhexdhexaad ah kadib wuu gaboobaya waxa waa sunnatullaahi fil kown ilaahi mataqaana sunnadiisi waaye qof adduunyada inuu baaqi ku ahaanay taa wax cilin kara ma laha laakiin wixii ka soo haray cudurkaas oo duqnimada iyo dhimashada wixii ka soo haray dawa ay leeyihiin قال الترمذي وحو يري هذا حديث صحيح حديث صحيح هو marka ahadiistan maxay nagu buraarujinayaan yani qofka bini aadamka haduu xanuunsan inuu safandhin waa inuu isdaweeyaa maxaa yeelay cudur ma jiro ilaa dawadiis ilaahi uu soo dajiyay wa hada ya'um marka wuxuu leeyahay dawadan rasuulka ilaahi uu sheegay cuduro qaarkood maya cuduro qaarkood ma aha cuduro oo dhan waxay doonaan ha noqdaan marka sheekhi isaga yiri sheekh matqaana ibn qayyim al-jawziyya wuxuu yiri wa hada ya'um adwa al-qalb wal-ruh wal-badan wa adwiyatiha waxay matqaana dawada ilaahi uu soo dajiyay oo matqaana waxay kulminayaan qalbiga mataqaana cuduradiisa والروح marka wahada yacum wuxuu ula jeedaa ilaan anaga maxaan soo sheegnay ilaahi cudur ma soo dajin ilaa wuxuu soo dajiyay dawadiisna uu soo dajiyay marka cudurkaas iyo dawadiisi ilaahi uu soo dajiyay waa caam wax walba soo galay cudurada oo idil waaye wax alla wixii dawo oo cuduradaas ilaahi uu soo dajiyayna mataqaana wixii dawo uu noqon lahaa uu soo dajiyay kala bixin ma laha wahada yacum wuxuu camimaaya mataqaana cuduradaas iyo dawooyinkaas waxay camimayaan adwaa alqalbi ko cudurada ku dhaco mataqaana qalbiga والروح عذرada ku dhacdo ruuxda والبدن cudurada ku dhacaan jirka iyo adwiyatiha iyo dawooyinkooda kulli way soo wada galayeen kama baxsana waqad ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dad fara badan waxay moodaan waxa xanuunsada inay tahay korka kaliya inuu xanuunsada korka kaliya ma aha qofku waxa laga yaabaa korkiisa waxna inuusan qabin wuu fiyow yahay hadii dhaqtar la geeyo si hadii loo baaro mataqaana wuu fiyow yahay la leeyahay laakiin meesha uu ka jiran yahay waa maxay waxa laga yaabaa inuu ka jiran yahay qalbiga waxa laga yaabaa inuu ka jiran yahay ruuxda marka arintaas hadii ruuxda iyo haduu ka xanuunsado mataqaana dhaqtar wax u tari maayo marka diinka waa inuu u soo laabtaa markaas waqad ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nabi ilaahi wuxuu ka yeelay al-jahla mataqaana cudurki mataqaana jahligi daa'an cuduro ka yeelay waa waja'ala dawaahu mataqaana dawadiisna wuxuu ka dhigay su'aal al-ulama mataqaana culimada oo la weydiyo rasuulka ilaahi marka wuxuu rabaa inuu ku tuso mataqaana cuduradii uu sheegay uu misaal ku siinaya dadka qaarkood waxa laga yaabaa jahligan oo caadiga hadda aqoon la'aanta inaysan cudur u arkin laakiin sida dhabta ah aqoon la'aanta waa cudur maxaa lagu daweeyaa aqoon la'aanta waxa lagu daweeyaa su'aal dadka oo cilmiga leh in la weydiiyo su'aasha oo ay kaaga jawaabaan waqad ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga ilaahi wuxuu ka dhigay al-jahla daa'an cudur ayuu ka dhigay وجعل دواءه دواديسنا وحو كدغاي سؤال العلماء علماء او لا ويديو او علماء hadii aad weydiisid su'aashi waa qofkii jahliga uu ka bogsanaya farawa abu daud wuxuu wariyay fi sunanihi sunantiis wuxuu ku wariyay sunan abi daud waa kitaabka la yiraahdo min hadith jabir ibn abdullah xageedu waxa abu daud uu ka wariyay qala inuu yiri qarajna waan baxnay
في سفر أيام كوبحني فأصاب رجلا منا نين أنا جامدة أيا وحى أصيبي وكدعي حجر نجح فشجه في رأسه مدحيسة أيو دلاعي وودقري ثم مركو وودقري نكي وصحري ثم احتلم مركو صحده هردada dhexdeedii ayuu ku janaabooday ihtalama macnaheedu waxa waay wuu janaabooday marka wuxuu u baahday qubays fasala asxaabtiisa fasala wuxuu weydiiyay ninkii asxaabtiisa markaas la socotay wuxuu weydiiyay uma taqaana wuu weydiiyay oo faqala wuxuu yiri hal tajiduna li rukhsa dad yahu rukhsa yani fasax ma helaya fi tayammumi inaan gabagabeysto waad u jeedaan waan taqramay madaxayga wuu furan yahay marka waxaan doonayaa inaan mataqaana gabagabaysto ruqsa hadda ma liga helaya bal quraanka ii fiiriya ahadiithda rasuulka ilaahay intaad iga taqaanaan ii fiiriya marka ninka wuu saxsanaa sidaas laga doonaya qofka tus wax garanaynin isaga inuu wax iska suubin dadka culimada inuu weydiiyo laakiin dadkii la weydiiyay iyagoo aanan garanaynin ayay jawaabeen oo maxay suubiyeen waa kan وقالوا وحي يراهدين ما نجد لك رخصة رخصة كومي هلينو وأنت تقدر على الماء واد أود بيه إناد استعماش بيه نوان حيسنا بيه ويالان أذن واد أود بيها استعمال سكركم عبادي سنكرتي سيدا سيكو يراهدين فاغتسل نيكي وقبيستي فمات ونا دينتي فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي مركان أصوغن لي أخبر بذلك أرنكاس الله شيء فقال مركز وحوي قتلوه ويدلي ويقلتمين يعني dadkan wax ma garanaynin ay wax aan garanaynin waxay iska dhigeen inay yaqaanaan durbadii hore ka jawaabeen ninkii way dileen qatalahumullah marka arintan ma sahlana allah dilo rasuulka ilaahay waa habaar marka habaarkan waxa waay ragan qalad ay ku dhaceen qaladkaas ay ku dhaceen mar labaad inaysan ku dhicin ayaa loogu digaya waxa la yiri qatalahumullah allah idin dilo waa disheen maxaa yeelay rasuulka ilaahay ducadiisa hadduu mar ilaahay rasuulka ilaahay gacmaha uu qaado maska ya allah uu yiraahdo marka ducadaan kale hadduu suubiyo waa laga ajiibi karaa marka dadka saxaabada way og yihiin rasuulullaahi mustajaabu dacwa inuu ahaa oo dacwadiis marna aan la radinaynin marka waxa way ka baqi jireen qatalahum qatal yani kelmadaas kelmad weyn waa waxay kaga xun tahay qofka in la qabto in la xiro qofka waxay kaga xun tahay in mataqaana la qabto la ganaaxo oo mataqaana canshuur la saaro taasay kaga sii xun tahay marka wuxuu dhahay rasuulka ilaahay qataluhu way dileen qatalahumullah alah dilo ألا سألوا مي ويديان وراي ألا سألوا مي ويديان إذا لم يعلموا حديث وح أجين وح يسن جرانين مي ويديان تساقوا فلان فإنما شفاء العي جهلك دوديسة السؤال سهل جهلك واحد دوّة حتى واحد أذن جرانين إنا واحد ويديسي محي ويدين وين محي ودك دقدق maxaa keenay maxaa jira hadaysan garanaynin maxay iskaga dhigeen inay yaqaanaan oo kale marka saadarteedii dadka qofka waxa laga doonayaa haduu wax cilmi uusan u lahayn uusan garanaynin inuu mataqaana uusan ku degdegin khaasatan waxa haduu yahay sharci haduu yahay maxaa yeelay wax Allah haduu ku qaldamo wax Allah wixii dambi ka yimaado waa loo qabsanaya hatta iska dhaf hatta waxna hadaysan ka imaanin waxa loo raacanaya cilmi la'aantaas uu hadlay waa mas'uuliyad daro cilmi la'aanta uu hadlay ayaa loo ciqaabaya hadii wax kale aysan ka imaanin إنما كان يكفيه وحكافينا يجري نكاسي أو لنتي أن يتيمم إنه جبيستو أو يعصر أو حره أو أمكن يعصب أو حره اسكو معنا واي على جرحه داو عيسى خرقة إنه كحره علن إنه كحره أما مرة إنه كحره تاسع كافيسي مركا ثم بعد جد يمسح عليها مركا كدب مدحي بيكو شبي ماي على الكاس وكحري دشيسة إنتو قعنتا متقانا قيو oo qoyaanka uu ka daadiyo ayuu marin lahaa masax sidaas waay yaani biyihi inta la soo qaado qoyaan oo marada lagu shubay maayo ee gacantii oo qoyan ayaa maradii la dul marinaya oo caalalkii meeshii lagu xiray dhaawacneed ويغسل كدبنا uu dhaqo سائر جسده korkiisa wixii soo haray uu dhaqo fa akhbara wuxuu sheegay أن الجهل marka xadiidkan hadalkan intaan dambe waxa waa hadalkii sheekha mataqaan ibn qayyim al-jawziyyi hadalkiisi waay wuxuu yiri fa akhbara rasuulka ilaahi wuxuu sheegay xadiidkan wuxuu ku sheegay أن الجهل جهل داء inuu yahay وأن شفاءه متنا في يوبديسة أما الجهل جاسي متقنا دوديسنا السؤال إني تحت سهل سؤال واي قفك هذا واحد قرنين إنا ويديسي فاسألوا أهل الذكر القرآن كان محويري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلهي متقنا ورسولك إلهي وحو معاني أحاديث وككينا يا قرآنك إلهي أيوك كينا يا مك أحاديث وحي فسر يسا قرآنك إلهي يفسر يسا وقد أخبر سبحانه إلهي وشجع عن القرآن كحقي سوحو كشجع أنه شفاء إنويه إلى هذا محن راديني نتي وحو ويدي دوس ويدي سماها إلى هذا كومر كهر وحو شجع عذر إلهي وسود جي مجرته إلا عذر كاسي دواء يوليه تاسو شجع مك الدودي آوي مك نتي وحو دونا يدودي إنو أركو مركز وحو لهي إلهي وحو شجع القرآن كان كريم كأ ونا دحيان آن هيسن هبين إيمانا آن آخر سنة
وادو إسقى بدبه إله نوشة فقال تعالى إلهي وحجري ولو جعلناه قرآنا أعجميا هدان كدغ لهين قرآنك أو رسول الله محمد أن كسود جني هدان كدغ لهين أعجمي ميدان فصيح هين أو لغة كلا كيمد هدان كدغ لهين لقالوا waxay dhihi lahaayeen kuwan mushrikiin carab oo hadda dalbanayo in quraanka luqad kale lagu soo dejiyo waxay dhihi lahaayeen lawla fussilat ayatuhu quraanka ayadka hadii la cadeyn lahaa maxaa yeelay marka meeshan waxa kaaga cad oo hadda aayada inuu cadeynaysa mada luqada carabiga iyo luqooyinka kale adduunyada ma dhinaca fasaaxada kuma tartami karaan luqada carabiga iyada number 1 ah iyada horeysa dadkii waqtigaas joogay carabta laga hadlay carabta hadda joogtana ma aha carabta waxa waa waqtiga nabiga joogtay oo nabiga la caasirtay luqadii ku hadlayeen taas lahaaya marka taas laga sheekeynaya marka wuxuu yiri hadii luqad oo carabi aan ahayn hadii quraanka lagu soo dejin lahaa dadka hadda dhahaaya luqad ajnabi ha lagu soo dejiyo dadka dhahaaya oo hadda saa ku dacwoonayo hadii quraanka ajnabi aan ka dhigi lahayn luqad ajnabi lagu soo dejin lahaa iyaga dhihi lahayd koow dacwada iyaga ka imaan lahayd waxay dhihi lahaayeen macada macnaha taamarku wuxuu ku sheegaya ilaahi wuxuu ku sheegaya sida luqada carabiga wax loogu cadeyn karo luqooyinka kale insaan loogu cadeyn karo oo luqada carabiga cadeynta dhinaceeda inay iyada ay ku horeyso saas uu sheegay marka saadarteeda waxaan carabi ahayn ma noqonayo ma taqaana quraan ma noqonayo waxay dhihi lahaayeen gaaladii lawla fussilat ayatu hadii la dhihi lahaa koow halkaas arin way keenay lahaayeen aayaadkiisa ma cadda si fiican uma cadda luqada ajnabiga hadii lagu soo dejin lahaa saasay dhihi lahaayeen waxay kala dhihi lahaayeen a'jamiyu يعني قرآن كلا سوت جي معجم مو هانايا ولسان الذي أنزل عليه نك الوسود الدجية كل كيسنا عربي مو نقولها معقول ميا وعرب طلعت أفكار نقول هذا لاين أف أجنبي واي ساسي إيه لهاي مركا إلهي وحور هاي قلوا وحاضر هذا رسول الله محمد هو قرآن كي هدى هنون إيه وشفاء إيه ومتقانا دو لوضع بوحوية هاي للذين كوي آمنوا إلهي رسولك سرمية يوم الآخر الرمية كواس وحو يحي وكل دابوايا سيد العلنتان قاعد مشركين عرب أي صوبينايا وسؤاش يسوع العلنايا يحجوين كينايا وما باهنا هذه قرآن كاس أي آخريان يكون فكران يكون تدبران وح الله وحي شكي الراب وقلوبته دي يعني قلوبتي كجرينيهن ما في قلوبهم مرض سيدا سواي إلهي وحوت المامايا قلوبتي كجرينيهن dadka muslimiinta muuminiinta ah waxa shakiga ayagu ku jiro maba ku dhacay maxaa yeelay quraanka ilaaha daaweynay quraanka ilaaha hanuunina oo hanuun u ah quraanka ilaaha weyn ku daawoowaya shakiga ay qabaan iyo su'aalaha ay qabaan dadka muuminiinta ma qabaayaan sidaas marka ilaahi muxuu noogu sheegay ayadan quraanka inuu yahay hanuun dadka muuminiinta inuu hanuun yahay laba inuu yahay fiyoobi inuu yahay ma taqaanaa inuu dawo uu yahay dawo muxuu ka yahay wax walba cudur kasta waay cudurkaas ha noqdo cudurkii ma taqaanaa qulubta ku dhacay sida shakigii reebkii ama cudurta ma taqaanaa ruuxda ku dhaco ama cudurta jirka cudurada ma taqaanaa jirka ku dhaco waxay doonaan ha ahaadaan quraanka ma taqaanaa wuxuu u yahay dawo sidaas uu yiri maadaama quraanka dawo waay uu yiri ilaahi quraanka dawo waay ilaahi wax qaala tacaala wa qaala subhanahu ta'ala ilaahi wuxuu kaloo yiri aayad kale wuxuu ku dhahay wanunazzilu waan soo dejinay ma huwa shifaa'un wax dawa ورحمة وحنا حريصة أيان للمؤمنين مؤمنين تنوصل دجنا ومن القرآن كأه سيدا سوين يعني القرآن كان وحن القرآن كان مكان سود دجنيني وحن سود دجنا إسقاء هنود إسقاء رحمة إسقاء فيوبي دو إسقاء عن سود دجنا واحد من أيوس كوجنا واحد كراسة وكذا حيليسا حداد ما أنت أترادينيس أحكام هذا أترادينيسو أو شرعي أترادينيسو القرآن كي يدفرون إسا شرعي وكويه هدي الدواء أترادينيسو القرآن كدوا وكويه هداد نحريس رادينيسو القرآن كنحريس وكويه wax walba ku yahay marka kitaab cajiib ah ayaan haysanaa marka wuxuu dhahay ibn qayyim hadalkiisa asagoo sii wato wa min taas uu haysto waa maxay wanunazzilu min alqur'ani min taasi alqur'ani ka horeyso ayuu ula jeedaa wa min oo huna halkaan ahaatay waxay u sugnaatay li bayaani jinsi jinsiga cadeyntiisa ayuu u sugnaatay la li tabciid macnaheedu maxaa waay hadii la dhaho mintaani qayb ayay faa'iideynaysaa hadii la yiraahdo macnaheedu waxaa waay qayb kamid ah quraanka ayaa dawa ah intiis kala dawa ma aha saas laga ma wado quraanka dhamaantiisa faatixada laga bilaabo ilaa birbinaas laga geeyo kulligiisi waa dawo marka saas uu kaga jawaabay marka wuuna dhahaya wa min oo huna halkaan ahaatay li bayaan jinsi cadeyntiisa ay u sugnaatay oo quraanka waxaan la soo dejiyay oo raxmada ah shifaha ah waa quraanka bilowgiisa ilaa dhamaantiisa waa ما تقنا لا لتبعيد مو أسقنانين تبعيد معها أو قيبين معها قيب كميد القرآن كدواء قيب كلا ندواء معها ساس لولا مجيدو من تتاس من فائدين اسمين تبحي فائدين يسا قرآن كون ندواء إنو يحي
marka wuxuu yiri ibn qayyim hadalka soo wato commenti uu ku kula cadeeyay wuxuu yiri fa inna al-qur'ana qur'anki kulluhu dhamaantiisi shifaa'un wa fiyubi كما قال تعالى إلهي سيدو أكيري في الآية المتقدمة آيدي أنسو شكنا حوا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فهو قرآن شفاء للقلوب قلوب تدووية من داء الجهل جهل عذر كيس أيو كدوية والشك عذر كيس كدوية والريب أيو كدوية شك وامحي shakiga waxa waaye markii qofku uu shakisan yahay laakiin dood weyn ma qabo laakiin reebka waxa waaye shakigi waaye laakiin shakigi uu gaamuray waaye qofkii xataa hadii laga mataqaana la shaki bixiyo intaas kuma ekaanayo su'aalo kale oo ayuu sii qabaa ma ku qancay kaas waaye reebka marka uu ka sii adag yahay shakiga marka wuxuu dhahay waxa soo idil qulubta ayuu ka daweeyaa jahliga ayuu ka daweeyaa shakiga ayuu ka daweeyaa reebku ka daweeyaa falam yunzil Allah subhanahu wa ta'ala ilahi masudajin من السماء سماد حقيقة كما سودجن شفاء في يوبي أما الدواء كما سودجن قط ولينا انت إلهي كتب وسودجن جري إلهي كما سودجن أعمك عام لما بدأ سيد القرآن كوح وطراي يا وح سيدا سكر وح وطراي oo mataqaana cudurado idil wada daweynay wax sidaas oo kale horay uma soo dejin ilaahay wala anfac midka wax tar badan ilaahay ma soo dejin wala a'zama wax ka weyn ilaahay ma soo dejin wala anjah wax ka mataqaana kana jixid badan ka liibaanid badan ilaahay ma soo dejin fi izalati dawaa'i dawada zuulinteeda min alqur'aan qur'aanka wax intaasoo dhan kaga horeeyo ma soo degin qur'aanka wax walba ugu horeeyo yaani kutubtii la soo dejiyo idil qur'aanka dhinacaas kuma gaaraya qur'aanka waxa waaye shifaa waaye raxma waaye hanuun waaye wax la mid ma jiro qur'aanka oo ilaahi uu soo dejiyay oo samada uu ka soo dejiyay qur'aanka la mid waqad thabata waxa sugnaaday fi sahihayn waxa ku sugnaaday min hadith abi sa'id qala inuu yiri انطلق وحا بحي نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة أصحاب النبي كترسن أيا بحضي في سفرة وحي آذين سفر كاسو سافروها أي سفرين أي أون إسكما بحين نبي إله دري سرية أهايين مثلا الجيش لدري أهايين حتى نزلوا وي سفرين ووي سعودين حتى نزلوا إلى إكدجين على حي من أحياء عرب يعني مثلا الدجانو ودجانات عرب كميدة إلى إكدول دجين ميل أو مثلا قبيل أو قبائل عرب وحوا قبائل ودجنا جرين مركا قبيل أو قبائل عرب كميدة ميل يدجين يهين أي هذا كودكتين مركا فاستضافوهم مركا عادة عربت وحالة هاي وحي أهاجرين ضد أو كرم بدن mataqaana inta rasuulullaahi maxamed uusan imaanbo dabeecadooda dhaqankooda ayay waxa kamid aha dadka inay soo dhaweeyaan dadka inay martigeliyaan laakiin hadda maxaa isbedelay ilaan anaga waxaan ogeyn siirada waxaan ku ogaanay rasuulullaahi maxamed markuu soo baxay oo dacwadii uu mataqaana koryeelay oo dacwadii uu koryeelay waxa waaye carabti badankeeda inay la colaytameen marka waxa laga yaabaa soo dhaweyn la'aantaas inay dhankaas ay ka socdo marka waxay weydiifaa abow an yudifu فأبوا أن يضيفوه ويديدين إني صو مرتقادان مكم حال عي فلودغا وحا لقنيني سيد ذلك الحي متقانا حي قاسي متقانا صحابة يسو كردقين سيد كودا لقنيني متقانا وحا قنيني وحا لهد بقلاع فسعوا له وحي أصوبيين وحي أهجاجين بكل شيء ودواء أي أهجاجين لا ينفعه شيء لكن وحا أي أصوبيين وحبا وحمتري وحا أي أصوبيين وحا أتري ملها فقال بعضهم قاركود وحي يراهدين لو أتيتم هؤلاء رهط حداد جماعة أو نسود الدكتي عاو حداد أتكتان كبر الذين كواسو نزلوا سودجي لعله حامضا أن يكون عند بعضهم شيء إنه أكتوري وهذا واحد دواء إنه مد إيجا كميدا إنه واحد دواء ووطو إلى ندك مكسفر أيهن وحنا لسكسيقاتها مرك واحد دواء متكود إنه هيا صورت جلا ضد كان وطك وحنا سوي دي فأتوه وي ماذين فقالوا وحي رهدين يا أيها الرهط جماعة ذاني إن سيدنا سيد كينا لدغ والقنيني وسعينا له بكل شيء وحول بوا أصوبنا والدواء لا ينفعه شيء وحمترين مركم حاد عي فهل عند أحد منكم ما تقانا مد إذنك مدأ أكتيس من شيء والدواء ما تقانا ما هذا فقال بعضهم قال كود مركب وحي رهدين نعم هل نواي والله ينقل دارتي إني لأرقي أنا قوان تفايو يري ولكن وحيري مثلا صاد نقول دقنتين او كلا idin kula dhaqmayna ilaan wanaaga idin ka dalban wanaaga diinteen Soomaha الجزاء من جنس العمل waxaan ugu suubisana idin ku suubinayna oo maxaa waay walaakin wallahi aan ku dhaartay laqad istadafnaakum wa idinka marti dalabnay falam tudifuna nama marti gelin fama ana biraqi lakum marka idin tufaayo dhahay ma idin caawinaayo hatta tajcalu li ju'lan ila waxa ay siisan ujru wa ina isiisan wax isiya
marka ujri isiisaan ayaan wax idin qabanaya fasaalaxuuhum waxay kula heshiiyeen calaa qatiicin min alghanami xeen ari ah ayay kula heshiiyeen fantalaqa ninkii wuu tagay yanfalu asagoo tufaay عليه ننكي جرنا أسوق قدر تفايو ويقرأ أخرنايا الحمد لله رب العالمين أسوق أخرنايا ماشي ننكي يودو تجي الحمد لله قدر أخريي فكأنما ننكي نشط من عقال وبإسقو لقسي داي متقانا حرق فانطلق ننكي ووتري يمشي يعني دقائق بدن أمر الحين مركا أكو أخري فاتحة هرا لقى أقبلي اقتسموا مركا ننكي حوله أيو سوقاتي مركا محاد عاي ها وما به مثلا قلبة نينكي يسوى وح علد أن كسرناني إلا محل هاي فكأنما نشط من عقال فانطلق نينكي وتري يمشي يسوى صعده وما به قلبة وح علد يسوى أن كسرناني فأوفوهم marka dadkii qabiilkii meesha deganaa saxaabada nabiga waxay u oofiyeen juclahum waxay ku balameen oo ujradii ahayd alladii jucligaasoo saalaxuuhum calayhi ay ku heshiiyeen faqaala bacduhum marka qaar kamida waxay yidhahdeen saxaabada markii xoolihii lasoo qaaday dad baahanay ahaayeene iqtasamuu qaybsadow faqaala alladii raqaa ninkii tufay wuxuu dhahay لا نفعل مصوبينينو حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي إن تنكغتكنو أو فنذكر له أن أشغنو الذي كان وحي دعي إلا أن كغشغنو marka wuxuu dhahay oo fanandura kadib aan fiirino ma ya'muruna waxa una amraayo faqaddimu way galeen ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahi u galeen fadhakaru lahu dhalika arinkaasi dhacay ay u sheegeen faqaala markaas wuxuu yiri rasuulka ilaahi wama yudrikniyahu maxaan ku ogeysiyay annaha ruqyatun faatixadii in ruqyatahay la isku tufo oo cilaaj ay tahay maxaan ku ogeysiyay thumma qaala wuxuu yiri qad asabtum waad asiibteen oo mataqaana dalbashada aad dalbateen oo xoolaha aad ka dalbateen xataa waa ku asiibteen faatixadii la akhriyo waa ku asiibteen sax wax saxaasuu biseen oo yiri haddaba iqtasimuu qaybsada xoolaha qaybsada marka ayaga rasuulka ilaahay nimankaasi oo qalbigooda uu ka farax gelinayo wuxuu yiri wadribuu lii macakum sahman anigana wax ii yeela insha allah mataqaana barnaamij taxan ayuu noqon doonaa maalin kastoo axad ah global box ka soo gala marka biidn illaahi alkariim maanta halkaan ha ku kaaftoomaynaa ma next week ayaan ka wadaynaa meeshiisa wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab haddana waxaan soo gaarnay qaybtii su-aalaha iyo jawaabaha oo aan weydiin lahayn ustaad yuusuf abikar maxamed ustaad waxaan ku weydiinayaa kitaabkan maxaa kugu kalifay inaad dadka soomaaliyeed ama uga faa'iideyso waxaan aniga daris la ahay masjidka karameel halkaas ayaan deganahay marka dhalinyar soomaaliyeed ayaa ii timid oo si oo gaar ah ii garanayay aniga waxaan garanayo iyo waxaan takhasuskayga wuxuu yahay iyo waxaan soo bartay horey aan soo bartay waxaasay ogaayeen marka waxay iga dalbadeen inaan kitaab u akhriyo marka joyska iyagaan siiyey waxaan ku iri wax kitaab ala kitaabkaad doontaan keensada waan diyaaran u ahay inaan idinku caawiyo aadin akhriyo marka hore waxay iga dalbadeen kitaabka Riyaad Saalixiinka waxay igu yiraahdeen Yuusuf waxaan doonaynaa kitaabka Riyaad Saalixiinka inaad noo akhriso marka kitaabka Riyaad Saalixiinka saad ka warqabto waa kitaab muhiim jiddan oo akhlaaqda islaamka dhiso marka waxaan dhahay haye waa ka yeelay haddana iyagaa isku soo laabtay waxay dhaheen kitaabka Riyaad Saalixiinka dad badan aan akhriyo oo dad badan shuyuuq badan aan akhriso markasta waa la heli karaa meel kastaana laga heli karaa laakiin Yuusuf waxaa jira kitaab oo muhiim ah oo aad loogu baahan yahay Soomaalida u baahan yahay waliba khaasatan waqtigan la joogo marka waxay dhaheen kitaabkaasi waxa waaye addaa wa dawaa oo ibn qayyim al-jawziyya iska leh kitaabkaasi meel aan ka helno oo macajalooyinkiisa internetka kuma jiro ma duumna مثلا مساجدين ولا جماعة أخرية كتاب كاس محمد أرنا very important إنه يهي مرك كتاب كاسي من وعاوين كرتا بس محمد هاي إن شاء الله تعالى وان أخرينا وان بلابينا مرك مساجد كرمين ما أنت سبتي ما أنت أحد صلاة الصبح كدي أيام كبلابي كتابه إنه صعدا مرك تدفر بدن أو تولوين أو من صوت الدجن أو جعله إنه يمادان كتابك لكن فوقان شها درتي سأي إلى إمام وايين مرك تدكاس هاي وحيد البدين in barnaamij laga dhigo oo TV-ga laga daayo oo waliba khaasatan global box mataqaana barnaamij laga daayo inuu noqdo oo taas ayaa waxay ku caawin kartaa kitaabkan ay u baahan yihiin in ay halkaas ay kala socdaan marka sadarteedii labadaba tii horena waan ajiibay waxaan dhahay okay kitaabka waan u bilaabay arintan labaadna markii la yiri TV-ga barnaamijkiisna waan kugu darsanay oo waqtigan ku siinay iyadina waan aqbalay taas oo aan doonayo Soomaalida inaan
يعني وحي أقون أن أولينا هاي وحي أن قفنا وابا قفنا يبو الله نقع فيه لكن وحي أن كصحصنا هاي وأقون أن أولينا هاي ودكم الصومالية وباهيين إن أنك عاونا تاسا درتيدي أيام مثلا كتاب كاني أن هكذا أقول بلابي إن شرحاتيسا mahadsanid ustaad yuusuf abikar waxaad ka shanqarisay kitaabka markaad akrinaysay in jahli badan uu jiro jahligaas oo keeno in dadka ay fadwooyin khaldan ay sameeyaan soomaalidana way u badan yihiin arrimahaas marka qofkii fadwo khaldan sameeya oo ku salaysan aqoon yari muxuu noqonayaa xukmigiisa marka ugu horeysa waxa waaye qofka waxaa la doonayaa sharciga islaamka mise qur-aanka wuxuu sheegay wax aadan garanaynin mataqaanaa ha ku hadlin wax aadan ogeyn saxnaantiisi qaldanaantiisii ha ku hadlin teeda labaad waxaa la doonayaa qofka hadlaayo oo sharciga islaamka ka duwan yahay sharciga islaamka markaad ka hadlaysid waa xilli iyo xurmo hadda waad aragtay dadkii saxaabada ka mid ahaa ninkii markuu su-aasha u weydiiyey u jawaabeen mataqaan maxaa ku dhacay waad aragtay naf aa baxday marka naf go-itaankeedii sharciga islaamka waa wax ku sahlan ma aha ilan sharciga islaamka gebigiis waxaa loo soo dejiyey in mataqaanaa nafta dadka inuu ilaaliyo hantidooda inuu ilaaliyo caqligooda inuu ilaaliyo hal qof oo la dilaa iyo mataqaan dadka adduunyada saaran dhan oo la dilaa sharciga islaamka oo isku xugun hal meelay wada yaaraan sida naftaasi ilaalinteedii lagu soo dejiyey ayaa waxaa lagu soo dejiyey dadkoo idil adduunka ku nool inuu ilaaliyo marka waxaa la doonayaa qofka fatwada uu istaagayo waa inuu kow uu ogaadaa waxa uu ka hadlaayo inay yihiin wax diin ah oo berito waxaba qof xaqa ma dalbanaya ee ilaaha la xisaabtamaya taa inuu ogaado marka saa darteed culimmadii waaweyneyd oo mataqaanaa oo lagu kalsanaa cilmigooda oo dadka ay wada yaqaanaan markii su-aal loo keeno waxay dhihi jireen su-aasha maya anaa ka jawaabaya ma dhihi jirin waxay dhihi jireen maya hebel ayaa jooga hebel ha loo geeyo hebel waxaa laga yaabaa sidii loo soo wareejinaya isaga inay kusoo noqoto oo la yidhaahdo sheekhow adiga lagama maraan noqotay dadka dhan adiga kusoo sheegeen adiga mataqaanaa ka jawaab marka dad ayagoo cilmigii leh yaqaano haddana waxay ka cabsan jireen inay qalad ay ku dhacaan xugun oo ilaahay uusan xalilin inay dhahaan xalaal waaye ama xugun ilaahay uu xarimay inay xugun ilaahay uu xarimay inay xalaal waaye ay dhahaan ama xugun ilaahay uu xalilay xaaraam waaye inay dhahaan cagsi ay suubiyaan taas ayagoo cabsi ay ka cabsanaayo waxay ka carari jireen ayagoo maqaamkii uu qumi karo ijtihaadi karo ayay dhihi jireen marka saa darteed waxaa qofka hadduusan garanaynin aqoon uusan u lahayn markuu marka hore inuu galamaba aha laakiin hadday dhacdo way dhacdaa hadda waxaa waaye xilli weliba khaasatan soomaalideeni waxaa markii wadankii uu burburay wax walba isku dhex daatay mataqaanaa waxaa mu'asasaadkii oo dadkii diyaarin lahaa dadkii way yaraadeen dadkii waa la kala firxaday marka nin walba intuu yaqaanay ayuu meel la istaagay marka qof walba isagaa isxukmiyey isagaa nin walba isaga ninkii doctoornimo rabay wuxuu yidhi doctooraan ahay ninkii sheekhnimo rabay wuxuu yidhi ana sheekhaan ahay nin walba wuxuu rabo sheegtay marka waxaa waaye qofkii inuu ilaahay ka baqotaa uusan suubinin laakiin hadday dhacdo oo qof intuu fatwoodo horta kow ilaahay xaggiisa dambiga uu yahay xataa hadduu fatwoodo wax sax hadduu sheego ma aha wax qaldan asagoo wax sax sheegay uu fatwoodo hadduusan dhihin aniga waxaan aan sheegay waxaan kasoo maqlay hebel iyo hebel keligiisi waa muqallid keligiisi fatwa lama istaagi karo waa inuu sheegaa meeshuu kasoo qaada waa inuu sheegaa ra'yigaanaan sheegay halkaasayna ku yaalaan sida xaqana ilaaha og waa inuu dhaha oo qofka uusan ku qasbin taa hadduusan yeeli karin inuu aamuso hadday dhacdo marka asagoo fatwada xaq aan u lahayn oo fatwooday maxaa dhacay fatwada hadduu asagoo xaq u lahayn hadduu fatwoodo waxaa dhacayso haddii dowlad islaam meeshaasi ay ka jirto ninkaasi in lasoo qabto la maxkamadeeyo sida qofka haddii qof dhakhtarnimo sheegtay sidoo loo maxkamadeynayo kale oo profession uusan lahayn yiri qof anaa ku daweynayo kaale isagoo dhakhtar aanan ahayn oo qofkii wax ku noqdo maxaa ama kan xataa wax yuusan ku noqon laakiin lagu ogaado qof profession uusan lahayn inuu ku shaqaysanayo maxaa loo suubiyaa waa la qabtaa waa la xiraa waa la dacwiya yani cuqubaada lagu qaadaa soo maha tanna sharciga islaamka waa nafsa system qofka haddii mu'ahal uusan u ahayn oo jagadaas uusan u qubi karin oo fatwo aan sax ahayn uu fatwoonayo ama fatwo aan sax ahayn laga yaabo inay ka imaan karto haddii dowlad islaam ay jirto ninkaas way qabanaysaa way maxkamadeynaysaa wax alla wixii cuqubo oo markaas u yaalo haddii qaanuun uu yaalo cuqubadaas haddii qaanuun uusan u oolinne waxaa lagu qaadaya wax alla wixii cuqubo oo tacsiir ah ayaa lagu qaadaya hadda nimankan oo saxaabada rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markay u yimaadeen oo nabiga ay u yimaadeen arrintii loo sheegay dhacdadii loo sheegay rasuulka ilaahi wuxuu yidhi qatalahum ninkii way dileen idinkaa dilayuu yidhi qof kale ma dilin ilaa ninka marka horeba diyaaro ahaa inuu gabagabaysto rabay soo ma aha marka wuxuu yidhi waa disheenuu dhahay wuu ku dul sugay marka wuxuu yidhi qatalahum allah hadda rasuulullahi maxamed maxaa u malaynay
qof caadi hadalkiisa kale ma aha rasuulka wuxuu ahaa wuxuu ku hadlo samaday la xiriireen yani mustajaabu dacwa dacwadiisa waa la aqbal marka saxaabadan way ogaayeen habaarkan uu habaaray mada qatalahum agtooda waxay ka yihiin wax weyn waa la ciqaaba nimanka laakiin hadda waxaa laga yaabaa qofka markuu akrinaya inuusan saas u dareemin habaarkaasi la habaaray inuu saa u dareemin ciqaab inay tahay inuusan u dareemin laakiin ciqaab waayo ilaan lama dhihin maxaa saas u yeesheen raximakumullah lama dhihin looma jilcanaanin waa lagu adkaaday weliba habaaroo kalaa laga dhigay haddii maanta iyaga way walwalayaan waxaa kaga ficnaan lahayd iyaga inta qatalahumullah rasuulka intuu dhihi lahaa waxay ka jeclaan lahaayeen in la dhaho intaasaa lidinku ganaaxay ama waa laydin xiray ama ma hadlaysaa mar dambe ha hadlin saas canaantaas in la dhaho ilaan rasuulka ilaahay dacwadiisa mar hadduu dhaho saan alla ku yeel waa noqonay marka allah ku dila haddii la dhaho maxaa umalayna arrin sahlan ma aha marka saa darteeda waxaa la yidhi hadda rasuulka ilaahay canaanay ka ahayd yani arrintaasi mar dambe inaan lagu dagin ayagana inay cashir ay u noqoto wixii ka dambeeyana inay cashir ay u noqdaan rasuulka ilaahay wuu sheegay wuxuu dhahay waxa haddaadan garanaynin oo jahli uu ku hayo jahliga waa cudure cudurka jahligana waxaa dawo u ah mataqaanaa su-aal ayaa dawo u ah maxaa wax weydin weyde idinkoo aadan garanaynin maxaa isu siiseen oo iskaga dhigteen inaad taqaaniin oo kale marka rasuulka ilaahay soo canaananaya arag saxaabada qaradkaas ka dhaxay marka qof kasta oo muslim ah oo martabadaasi aanan lahayn oo wax aanan jawaabi karin oo maqaamkaas isa siiyo oo wax jawaabid usoo istaago waxaa ku dul socdo kelmad xataa kelmadda hadday saxsan tahay min allahi cuquba ugu socdo maxaa yeelay qaladka uu suubiyo ummada dhan uu ku halaagaya saxnaantiisa la fiirin maayo waa gartay waxaa jirta soomaalida ama dadka baad dhayantan qof hadduu xanuunsado isbitaalku ku cararaya markiiba qur-aankii dhinaca lama fiirinayo marka qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga dawo buuxda yihiin soo ha ma hadda aayadda qur-aanka hadda aan soo sheegnay ma aayadda qur-aanka waxay ahayd oo aan sheegnay bismi illahi raxmaani raxiim qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa ma ahno marka yani qur-aanka wuxuu u yahay kuwa mu'miniinta wuxuu u yahay hanuun iyo muxuu u yahay shifo fiyoobiyo u yahay marka fiyoobidaasi dawow u yahay dawada mana kala qaaday maya wax walbay kaga fiyoobaanayaan wax walbay kaga raysanayaan wax walbay kaga dawoobayaan qur-aanka ilaahay hadday noqoto amraada ku dhacda qalbiga hadday noqoto amraad ku dhacda ruuxda hadday ku noqoto amraad ku dhacda badanka marka laakiin hadda culummada waxay suubiyaan dadka culummada yaqaan waxaan isku daweynta qur-aanka la isku daweeyo iyo aharta la isku daweeyo horta qof walba way u furan tahay laakiin dadaa waxay ku yihiin profession oo waqti dheer ku dhex jiray aada u yaqaan waxay suubiyaan dadkaasi waxay yidhaahdaan hadday rabaan qof hadduu u yimaado uu dhaho aniga waan xanuunsanahay na daweey hadduu yidhaahdo waxay suubiyaan waxay dhahaan inta aadan aniga aan dawo kugu suubin marka hore bax dhakhtarka u tag haddii badanka aad ka xanuunsan tahay easy waay isoo daweey dhakhtarka bal dhakhtarka isku tijaabi haddii dhakhtarka wax uu ka keeni waayo oo cudurkiisa sidii uu noqdo ama meesha raba ha noqoto waxay ku daweeyaan qur-aanka ilaahay ku daweeyaan ilaahayna uu ka aqbalaa marka isku daweynta qur-aanka la isku daweeyo qur-aanka ilaahaba sheegay shifaa uu ku sheegay waa fiyoobi wax walbaa loogu fiyoobaada marka amraad albadan korka mataqaanaa jirooyinka ku dhacdo taas mataqaanaa waaba sahal waxaa ka daran amraad alruux hadda ruuxdan ugu dhex suran anaga ma moodno inay xanuunsato laakiin ruuxda way xanuunsataa sida badanka uu xanuunsado kale waxaan odhan sheegay qalbiga wuu xanuunsadaa sida badanka uu xanuunsado kale marka xanuunka qalbiga iyo xanuunka ruuxda xoogaa yar uu ka duwan yahay xanuunka badanka kale xataa dadka badanaa oo ruuxda ka xanuunsan ama qalbiga ka xanuunsan sida badan waxa waaye dhaqaatiirta xalmu u helaan marka waxa kaliya meesha ku habboon oo lagu daweyn karo waxa ugu iisisan waxa waaye qur-aanka kariimka ما شاء الله وما سنتهي شيخ أستاذ يوسف أبيكر محمد halkaad nagala socotaan waa global box t v barnaamij kan nurul iman wuxuu ahaan doonaa barnaamij ka baxa maalinka axadda ah global box t v sidoo kalena waxaa naga daawan doontaan youtube-ka barnaamijkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay anagoo cabdiyaar gurxan iyo ustaad yusuf abikar oo inoo soo dayn doona barnaamijkan sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu